السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نغدق وهنوصن dadkana hanuuniya dhammaan dadka barnaamijka gufaaca ka daawanaya Somali Canadian TV kana dhagaysanaya Radio Borame CKMS 102.7 FM. barnaamijka gufaaca maanta waa maalin axada bisha February 9 2025 hijrigu yahay Shacbaan 10 1446. barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa dhowr qodob. marka hore waxaan ka hadli doonaa deegaanada Soomaalidu dhammaanteed in fidnada iyo dardaarankii uu nebigu bixiyey iyo fidna waxay tahay aan marka hore ka hadli doono. waxa kale oo barnaamijka ku soo qaadan doonaa Muuse Biixi oo ku soo beegan magaalada Hargeysa iyo abaabul loo wado soo dhaweyntiisa. waxa kale oo barnaamijkaad ku daawan doontaan odayaal deegaanada Baki hareeraheega degan oo qayladhaan diraya oo ka qaylinaya macdan la sheegay in la qodayo dhibaato inay ku tahay oo aanay xamili karin hadalkoogana in la qaato la dhageysta ay tahay. waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa boqor Buur Madow oo hadlay oo ciidamada beeleedada in la qaramayn doono sheegay iyo Maxamed Abiib oo isna ciidamo beeleed adal Empire inay ree awdal u baahan yihiin sheegay oo jawaabtaasi maalintii dhaweyd uu boqor Buur Madow u jawaabay hadalkaas ayayna barnaamijka ku daawan doontaan. waxaad ogeydeen intii uu maamulka haystay Muuse Biixi dhibaatadii soo gaadhay Somaliland berigii dhaweyd uu airportka ka baxayay inuu ciidamo la galay uu violation ku sameeyey. waxaa jiray madax ka horeeyey ilaahu naxariisto Siiraanya ka mid aha daahir ayaa la nool yahay way baxaan way soo noqdaan sharaftii iyo qiimihii ay lahaayeen dhexdooda bari bulshadii way ku leeyihiin. Muuse Biixi dadku inay ogaadaan weeyey maxaa ugu wacan in cirka la geegeeyo oo la buunbuuniyo isagoon ognahay in uu baddii Soomaaliyeed iyo degaankii dadku lahaayeen uu heshiis kula galay oo khalad ahayd heshiiskaana ummadda laga gaaray isagoo intiin dagaal sokeeya inuu qaaday odageedan dad shacab oo wax galabsanay inay ku dhinteen maanta ay keentay inuu nabadgelyadiisii khatar ay ku jirto. sababuhuna ay tahay inaad ogaato weeye markaad qatlu fidna ka qayb qaadato. waxaa baryihii dhacay Cumar bin Khadaab nin baa yidhi amiir almu'miniin baan rabaa. markii loo sheegay la yidhi geedkaa ninka hurdaba wuxuu yidhi cadli baad samaysay dabeedna waad xukuntay waana seexatay. maanta Muuse Biixi halka ay ragi ka buunbuuninayaan ee cirka la geegeynayo daahirayaal oo la mido soo maamulay maanta meel walba iska maraya. maxaa Muuse markaa soo dhaweyntaase aan isagoon madaxweyne ahayn maxay tahay macnaheegu markaa miyaanay ahayn wixii la iskugu heshiiyey in madaxweyne cusub la doortay madaxweynihii cusbaa maanta uu maamulka hayo maxaa fidna loogu dhex waraa dadka wasanka looga galgalinaya ummadda Soomaaliyeed ilaahay u kala badbaadiyey. muusena waa shakhsi Soomaali ka mid ah maanta deegaankiisa iyo dhulkiisii buu joogaa. dadku in la kala badbaadiyo u baahan yihiin in arrimaha socdana dadku ogaadaan weeye. dadku degaan nin walba degaan buu degan yahay degaankii wax la isku darsadayna xuquuqda in la ilaaliyo wey. madaxnimaduna sharci iyo shuruud bay leedahay iyo constitution dalku madaxweynaha dalka ka jira madaxweynahaasa ay tahay in isaga aad amarka ka wada qaadataan iyo madaxweyne ku-xigeenka. dadkii tagay faqad faata waa tageen laakiin maanta waxaa muuqata in abaabul siyaasadeed socdo dagaalo sokeeya socdaan taasina ay fidno tahay. waxaan ummadda la wadaagayaa waxaa jira odayaal hadlay oo beesha habara bokora oo sheegay deegaanada ay degan yihiin khatar ugu sugan yihiin dad heshiisya soo galay oo caafimaadkooga iyo degaankoogu khatar uu ku jiro. wixii go'aanay gaadheenna waan qaadanay wixii ka dambeeyay soo wada baxana annagoo isku duuban ayaanu ka wada hadli doonaa ciddii ay khusayso. shalay ku coday haddaad maanta baaba iga soo qaado waxaan jirnay iga soo qaaday intay sunku idulilaa hoos weyna haddii sumaynayso xabaddu hay qaadee dhimashaan kaa qaad ragga dalka u dhashay ee maanta muxsunta u soo horkacay ma noqon karaan mas-uul dadkana ma mateli karaan
waxa weeyaan maanta laga bilaabo waxa weeyaan waxaan leenahay qorigan qaataanu diyaar baan u ahay dhimashaan diyaar u ahay wasiirka macdantana waxaan leeyahay ku celcelinaya hadalkiisa wasiir haddaanad ku jirin hawsha soo lab waa wasaaradaadii aday si qaasa ku qusaysa haddaanad saxiixin adigu kabaniga oonad dul keenin oonad ogeyn galabta anaga soo baxaan waxaad ogtihiin siimoodii xoolihii dhibaatadu ka soo gaadhay dadka iyo dadkii qaarkood oo la sheegay cudurro inay ku dhaceen qaarna madhalays noqdeen waxyaalo fara badan chemicalka macdantu leedahay awgeed waxaad ogtihiin somaliland inaanay ahayn dal adduunyadu ictiraafsan yahay marba waxaa yimaada qolooyin contractorisa oo tuuga oon cidna danaynin waxay la soo hadlaan kuwo kale oo dilaala ah waxaa loo baahan yahay dalku markuu yahay dal dowlad leh oo ummaddu ogtaho adduunyadu ogtahay heshiisyaa la kala galaa heshiisyada lagu kala gala macdanta waxa ugu horeeya in la ilaaliyo xuquuqda dadka deegaanka environmentkooga in la ilaaliyo wey inay meesha radiationka ka imanaya chemicalka dadka laga badbaadiyo in contractyo heshiisyada lagu kala gala ah percentage in dadka deegaanku qaato degmadu qaadato gobolku qaato laakiin dad iska socda uuna mar walba deegaankoogii loo tashanayo iyagiina aan tashanaynin odayadaasi waxay mudan yihiin baryahan oo dhan waxaan wareysanayay oo aan dabagelayay bal heshiisyada la sheegayo inaanu ogaano kuwii aanu la hadalnay maalin walba siday u lahaayeen waanu bixinaynaa information wax information ay bixinayaan ma jirto marka dadka waxaanu leenahay oo waajib saarana caafimaadkooga iyo deegaankooga iyo dhulkooga xaq bay u leeyihiin inay ilaashadaan inay ku tashadaan cid kale maahine iyagu inay isku tashadaan oo midnimo la yimaadaan oo laga ilaaliyo caafimaad darrada iyo chemicalku dhibaatada ay idin leedahay idinka oo midaysan odayaasha hadlayana odayaasha aad arkaysaan da'da intaa leeki waxay ka hadlayaan waxay arkayaan oo goobjoog u yihiin waxay diidan yihiin wax xaqdarro ah waxayna mudan yihiin in la dhagaysto oo la maqlo waxa ay ka hadlayaan reer uma jeedaan sida aan anigu ka fahmay hadalka dad reer u jeeda ma shakhsiyaad had iyo jeer calooshooda u shaqeeya oo aan danaynin dadka ayay la hadlayaan uma jeedaan reero siday dadku qaar badan u fahmeenna maaha magacyada ha sheegaan laakiin waxay u jeedaan dadka aynu had iyo jeer ugu celcelinaynu leenahay mar hadduu hayigu qaybsamo waa hunguri joog kuwa eegayo in calooshooda waxa galaya oo aan eegayn shacabkooga dhibaatada haysatood ogtihiin siimoodii wixii qabsaday deegaanadoo dhanna sidaasoo kale u mudan yihiin dhammaan beelaha gale bursigu degan yihiin dhibaatooyinka haysta waxa weeye soomaaloo dhan baa u timid aroortii bay kala hayaan xitaa ma garanayaan radiationka iyo chemicalka maalin oo dhan ay dhex joogaan wax uga waaniya gobolkii aqoontana waa lagu sheegayaa ummadii oo dhan waxay leedahay waa aqoon aqoontu marka ay dadka badbaadin weydo aqoon lama yidhaa allaahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac aqoon aanay dadkii dhex joogay ka faa'iideyn aqoon lama yidhaa aqoonta waa ta dadku ku faa'iideemayo ee lagu badbaadinayo eed arkaysaan waxa ka taagan bulshadii dhex joogta hadday noqoto dulmi iyo hadday noqoto waxba laakiin magac uun iska jiro oo waxbarasho waa education waa information waa intaa bas wax kaloo dhaafsan waana xirfad lagu shaqaysto waxaan dadka la wadaagaya waxaa jira in dadku samaystay somaliland intan dambe oo dhan beel walba ciidamo beeleed habar jecladu waxay leedahay ciidamo beeleed leedahay SSP beesha garxajis waxay leedahay T36 habarawar waxay leedahay SPA arabna wuxuu leeyahay ACP waxa aan dadka la hadlayaa deegaanka awdal iyo deegaanka degan beesha gadabuusi iyo beesha ciise haddii waxaan sharci lagu heshiiyey uu yahay sida aad ka maqlaysaan hadallada ka soo yeelaya waxaad nala daawataan boqor buur madow oo hadlaya oo ciidankan SSB G36 wuxuu samaysay markii aanu aragnay inay xukuumadda kaligeed hiil walaal iyo daalado dhan soo duulay aanay ku filayn inaanu anagu hantidayada hub gelino gaadiid gelino isbarbar taagno dadka sheekeynaya leeyahay waxaanu ka furaynaa Hargeysa iyo meelaha kale aanu jabhada ka furaynaana waxaan leenahay qaranku difaac u baahan yahay haddaad difaacaysaan kaalay anagu taayada dawladdaanu ku wareejinaynaa haddaad dagaalamaysan oo dalka difaacaysaan haddaad siyaasad wada hadal keenaysaan oo fiican waan ka wada hadlaynaa laakiin inuu Hargeysa ka hadlo aan ogeyn dhibaatada ay haysataa
oo shalayto inta ceerigaabo iyo burco iyo meel walba layga saaray aan walaaltinimo ogolaaday aanan hantidaydii ka hadlin layga dhacay maantana inta lay dilay oo dagaalkii laygaga bilaabay ceerigaabo iyo boodli rajin doontaan markay hawshu dhamaato markaan ku kalsoonaano dawladdu inay amnigayga ballan qaadayso oo ku wareejinay annaga ciidamadeeda waa la qaramayn doonaa colaadna ka warramaya colaadu waa labo dadku inay ogaadaan wey colaadaad markaa ku haysatiya mid kugu soo maqan wey kuwaasi bari markay colaada soo dhamaystaan ay deegaanada ku soo noqdaan kuwa ay ku soo noqonayaan waxay noqonayaan kuwa markay dhiigga ay xalaashadaan muslimiinta oo ay imikana loogu mamarsiinayo waxa nagu jirto colaado waxaan dadka leh deegaanka degan oo nagu celcelinaya alaysa rajulun rashiid war miyaanu inagu jirin nin caaqila oo dakiya oo arkaya waxa taaqir nabigu wuxuu yiri saddex waxyaalood waa la isku dardaarmaa nabigu wuxuu yiri waa inaad barataan sida qoriga loo rido ama rasaama yani sida waranka loo wada qaansada iyo laabka sida loo tuuro inaad barataan maanta qoriga weeye sida qoriga loo rido inaad barato way training qaadato sida loo dabaasho waa inaad barataa sida fardaha loo furanayo inaad barato waa xadiis nabi weeye dadka gobolka awdal jooga maxaa u diiday sida dadka kale u samaysanayaan deegaankooda ciidamo beelad inay samaystaan maxaa idinku wacan maadaama aad arkaysaan bal dhageysta maxamed abiibule ciidamo adal empire in la samaysto waanu ku qasbanay maadaama nin walba waana runtii weeye waxa uu sheegayana waa wax jira meeshana waxa inoo muuqata haddii dadka Soomaaliland ku nool qaybay jabhada haysato dadka kalena waxay ku qasbanaan doonaan inay jabhada samaystaan iyaguna isku difaacaan annagu markaa xukuumadda madaxweynahana waanu sheegnay muddo 6 bilood aan sugaynaa haddii 6 bilood lagu qaramay waayo magacii ciidanka qaranka la soo celin waayo adalin baayar ciidan la yiraahdo baad ku arki doontaan booramiya awdal ciidanka qaranka ergabo jooga ama area jooga haddii reer hebel lagu sheego guushu gaadhaba dhadhanku yeelanaya waa kee dhadhankeebu yeelan midda labaad anu kalsoonida aan qabayo markay jabhada baabuur wati ay dalka gudihiisa joogaan iminka magaaladii burciyo goboladii bareeyaan uma tegi karo way security-ga naftayda kuma aaminayo because ciidanan dawladda ka amar qaadan baa jooga san ugu aaminaa 7 sanayna dhaafay madaxweynuhu baa shaqaysanayay qaranka looma shaqeyn de mar rabno xukuumad la mid ah rabno annaguna gacmaha ka laaban mayno inta waa ku adag ummaddu maanta dulmi bay ku socotaa waxa jira dal Afrikada kamid ah boqor baa qabiiladiisii waxa kula taliyay inay ciidan wada noqdaan ilaa imika dadka ka taliyay waa reerkii maalintii tirada la siiyay ciidamadu faa'iido way leeyihiin khasaarana way idinku dad aad ku duuleysaan nimadii oo hub samaysto dad garaac oo dulmi ku laaya inaad naftiina ku badbaadisaan iyo deegaankiina oo idinku ciidamo beelan samaysata wad ku qasbantii maalintii ay asanaamay soo gashay maxay idin qabsaday oo ogtihiin wixii idinku dhacay maantana waxaan idin la taaganahay habeen iyo maalin war wax samaysta aad idinku loodihiin oo dad kale ku tashanina hortiina lagu samaysanaya ciidamo beeleed waxa la idin leeyahay waa la qaramaynaya idinku marka maxaa tihiin miyeydaan aqli lahayn miyeydaan hayn dad adduunyada la socda waxa taagan maanta soodinka arkaya xuduudihii baa dad lagu laynaya shariicadii aan ogolayn waxa uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiiska wariyay abi musa al-ash'ari in badanna xadiiska dadku si kale u daliishada waxa halkaas kuwa qatl beenbeena ummad ku laynaya oo shacab waxba galabsano isku yeeraya mujaahid shahiid walaalayaal xadiiska nabigu waxa uu weydiinaya asxaabi abi musa al-ash'ari ya rasuulullah bulay nimba anoo gurigeygii iyo reerkaygii hantida haysta isoo weeraray wuxuu rabaa naftayda inuu dilo maalkaygana inuu qaato maxaan sameeyaa abu rasuulka ilaahay ku yiri rasuulka ilaahay wuxuu ku yiri istifaax nabigu sallallahu alayhi wasallam hadana wuxuu ku celiyay ninkii hadii la dilo ka waran buu yiri hadii lagu dilo buu yiri waxaad gali janno hadaan dilo ka waran buu yiri naarbad hadaba waxa la rabaa axaadiista aad maqlaysaan saxiixi waxay ka hadlaysaa marka adiga dulmi gurigaaga naftaada reerkaaga iyo caruurtaada lagu soo doonto odogeydan wixii asana samaysay ogeydan wixii xaq darad dadka ku dhacay maanta kuwii idinka idinay mujaahidiin loogu yeerayo alaysa rajulun rashiid war miyaanu inagu jirin miyadan dad aqli lahayn miyadan fikraynin miyadan arkayna adduunyo kale ma idin dhex joogtaan adduunyada dadku dhex jooga mooyaane waxa leeyahay arinta iyada inay idinka tashataan oo go'aan cad ka gaadhaan oo ku tashataan deegaankiina iyo dhulkiina idigoon cidna dulmiyaynin
inay idinku gacanta ku qabsataan idinkiiyo beesha ciise wada degan halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Kenyan TV kana dhageysanaysaan Radio Borome CKMS 102.7 FM وأنا قلت فترة حامد سلطان علي علمي سلطان